cajabay cajiib waxa uu si rasmi ah u qiray inay jiraan weeraro ku soo foogan gudaha magaalada Muqdisho waxa uu mar kale muujiyay walwal amni iyo xaalad habacsanaan dhanka laamaha ammaanka ah waa halbeega wararka iyo warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono ra'iisul wasaarihii dhammaa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo markan dareemaya baqdin iyo cabsi amni oo weyn oo ka jirta caasimadda markii ugu horreysay waxa uu qiray inay jiraan weeraro qorsheysan oo loo qorsheeyay Muqdisho waxa uu dhaleeceeyay oo weerar afka uu ku qaaday ciidamada ammaanka ee dawladda isagoo amarro adag duldhigay saraakiisha hoggaamisa hay'adaha amniga warbixintan ayaan ku falanqayn doonaa hadalka Xamse wararkii ugu dambeeyay howlgallo kala duwan oo laamaha ammaanka ay ka sameeyeen Muqdisho duleedkeeda iyo guud ahaan gobollada dalkan balse marka hore sii sheergaree muuqaalkan oo leegna saar kuna soo biir boggeena Facebook ee halbeega wararka si aad ula socoto xogaha iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino waa hagaag aynu ku horeyne ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u sheegay inay jiraan baqdin amni oo ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Xamse ayaa sheegay in la qorsheeyay dhowr weerar oo Muqdisho inay ka dhacaan loogu talagalay oo ay abulayaan kooxda Al-Shabaab waxa uu caddeeyay Xamse oo ka qaybgelayay shir arrimaha haweenka looga hadlayo oo ka dhacay Muqdisho in ay jirto feejignaan dheeri ah oo laamaha amniga ay ku amreen xilli uu sheegay inay jirto habacsanaan amni oo weyn oo laamaha ammaanka dawladduna ay ka jiifaan xaqiijinta ammaanka caasimadda Muqdisho waa madaxa xukuumadda ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uu dareemayaa cabsi lixaad leh xagee ayay joogaan shacabkii caasimadda Muqdisho oo iyagu canshuur bixiyaasha ugu badan shacabka Soomaaliyeed ah allow sahal umuuraha Xamse waxa uu qirayaa in ay soo fool leeyihiin dhibaatooyin waaweyn waxa uu weerar afka ku qaaday ciidamada amniga iyo taliyayaashooda waa ay iska hurdaan oo ma jirto wax howlgali dhaqaaq amni ah oo caasimadda laga samaynayo iyo hadallo kale ayaa ka mid ahaa kuwii uu ku dhaga hadlay ama uu ka sheegay laamaha ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya xaalka ayaa mar kale isbedelaya Muqdisho waxa ay wajahaysaa maalmo adag oo amnigeeda xitaa ay ka dayrinayaan madaxdii qaranka weerarada qorsheysan ee ku socda caasimadda oo toddobaad ka hor aynu baahinay ayuu markan si rasmi ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre goob fagaara ah uga sheegay inay jiraan weeraro suuragal ay tahay inay ka dhacaan caasimadda Muqdisho aaway laamihii ammaanka ee dawladda maxay tahay iyagu shaqadoodu maxay ku mashquulsan yihiin maxay tahay se gaabis ka jira waa su'aalaha ugu badan oo ay isweydiinayaan shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale ciidamada dawladda oo howlgallo xooggan bilaabay saacadihii ugu dambeeyay gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose ayaa la sheegay in halkaas ay ku buriyeen maxkamad gaar u ahayd Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysay howlgalkaasi howlgalkan oo ka dhacay waddada xiriirisa Basra iyo sidoo kale degmada Balcad ee Shabeellooyinka dhexe iyo midda hoose ee Soomaaliya ayaa la sheegay in jab xooggan lagu gaarsiiyay Al-Shabaab balse markan waxaa la soo tabinayaa xog kale oo dhiila ah oo sheegaysa inuu howlgalkaas uu ku dhaawacmay ninkii dhowaan loo magacaabay madaxa howlgallada ee gobolka Banaadir dagaal xooggan oo waa berigii hore ee saakay ka dhacay beerta Cali Mahdi iyo deegaanka Basra oo ah xuduudka kulmisa gobollada Banaadir Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ciidamada dawladda oo weeraro gaadmo ah ku qaaday maxkamad shabaab ku lahaayeen deegaanka Basra iyo beerta Cali Mahdi ayaa la sheegay in lagu guuleystay in cagta la mariyo maxkamadaas oo la buriyo saraakiisha horkiciisa ciidamada waxa ay sheegeen in horjoogyaal ka tirsan shabaab la soo qabtay kuwa kalena la laayay sida ay hadalka u dhigeen shabaab sidoo kale waxa ay dhankooda ay sheegeen in ay ka hortageen weerar saakay ay ku soo qaadeen ciidamada dawladda Soomaaliya ayna sheegeen inay weli gacanta ku hayaan deegaanadii ay joogeen
xidigle Salaad Carabi oo ah taliyaha ciidamada howlgelinta gobolka Banaadir ee booliiska Haramcad ayaa ku dhaawacmay dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Basra iyadoo Cabdirasaaq Garbadheere oo ciidamada caanka ahaana oo ku dhintay weerarkaasi waxaa jira askar iyo saraakiil labada dhinac ee dagaalamay oo dhimasho dhaawac soo kala gaartay balse weli si cad looma oga qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay howlgalkaas ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliiska gaarka ah ee Haramcad ay ku qaadeen deegaan ay ku sugnaayeen kooxda hubeysan ee shabaab daawada fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo.